يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan maanta rabaa in aan idinla wadaago cinwaanka ah shuruudu salaa ama shuruudu sixati salaa. salaada shuruudaha ay leedahay waxaa weeye 9 weeye. kutubta qaarna waxay qoraan 6. salaada shuruudaheeda waa 9 sida raajixa ah. shuruudda koowaad ee qofka salaada tukanaya laga rabo waxaa weeye al-islaam, inuu islaam yahay. maxaa yeelay salaada kama ansaxayso qofka kaafirka ah ama gaalka ah. maxaa yeelay shuruudaha camalka lagu aqbalo waxaa ka mid ah al-iimaanu billaah, in ilaahay subxaanahu watacaala la rumeeyo. kaafirka ama gaalkana mu'min ma ahan oo ilaahay subxaanahu watacaala ma rumaysnaa. saas daraadeed salaadiis waxaa weeye aqbal maahan, acmaashiisana aqbal maahan, laga aqbali maayo. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ma rumaysna. shuruudda labaad waxaa weeye al-caqlu, waa inuu qofka tukanaya waa inuu leeyahay caqli. maxaa yeelay qof waxaa weeye caqliga ka zuulay ama caqliga ka tegay waxaa weeye qof waxaa weeyaan caqli leh maahanoo salaadiisa ansax noqon mayso, waayo caqli ma lahan. sida majnuun oo kale, waa sida qof waalan oo kale. qof hadduu waalan yahay caqligiisa taam maahan oo dhamaystirna, wax caqli uu leeyahay ma lahan. saas daraadeed marka laga ansixi maayo salaadiisa. qofka hadduu sarqaansan yahayna oo khamri waxaas u cabayna waxaa weeyaan caqlina ma lahan oo caqliguu ka tegayayo. isaguna waxaa weeye haddii uu tukado salaadiisa ansax noqon mayso. shuruudda saddexaad waxaa weeye at-tamyiiz, inuu qofka tukanaya wax kala sooci karo oo wixii nijaasa ah, wixii tahaaro ah, wixii kale uu kala sooci karo weeyaan. ilmaha yarka ah waxaa weeyaan waxba ma kala sooci karo ilaa uu ka gaaro da-dii wax lagu kala sooci lahaa. da-dii wax lagu kala soocayo ilaa uu ka gaaro da-daas oo wax lagu kala sooci karana waxaa weeye waa 7 jir. ilmaha haddii 7 sano ay gaaraan waxba kala sooci karaan. waayo nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi waxaad amartaan caruurtiina salaada amra iyagoo 7 jir ah. markay 10 sano gaaraana ku garaaca oo weliba ku kala geeya, maxaan ku yidhaahdaa, jiifka dhexdooda ku kala geeya. maxaa sidaa loo leeyahay? ilmaha haddii ay 10 sano ay gaaraan wax kasta way kala garanayaan. marka waxaa la diidayaa wiil 10 jir ama gabar 10 jir ah inay isku meel saxdaan, waxay doonaha isla ahaadaan. ujeeda waa in la kala geeyaa. shuruudda afaraad waxaa weeye rafcu lxadath,
in yani xadadka laga kor noqdo ama alطahaaratu min alxadath. kutubta qaar baa rafcu lxadath qorta, kutubta qaarna alطahaaratu min alxadath. waa isku mid. alطahaaratu min alxadath waxaa weeye xadadka inuu daahir ka yahay. xadadkan waxaa loo qeybiya labo: xadath اlasqar iyo xadath alakbar. xadadka yar sida kaada iyo wixii la mid ah. xadath alakbar waxaa ka mid ah sida saxarada oo kale iyo wixii la mid ah. marka waa inuu ka daahir yahay xadadka. shuruudda shanaad waxaa weeye isaalatu nijaasa, in ruuxa tukanaya ama raba inuu tukado waa inuu yani iska zuuliyaa nijaasada, waa inuu iska zuuliyaa. ama alطahaaratu min alnijaasa, waa inuu daahirka yahay nijaasada, sida jirkiisa, dharkiisa iyo meelaha uu ku tukanayo waa inay yani daahir yihiin. jirka waa inuu daahir yahay, dharka kulleba uu ku tukana waa inay daahir yihiin, meelaha uu ku tukana waa inay yihiin daahir. mujeeda. shuruudda kale waxaa weeye shuruudda lixaad waxaa weeye satrul cawra, inuu qofka cawradiisa asturo. qofka yani tukanaya waa inuu cawradiisa asturo, maxaa yeelay salaada kama ansaxayso qof yani feeday cawradiisa. marka qofka tukanaya inuu cawradiisa asturaa. ragga waxaa cawra ka ah xudunta ilaa iyo jilbaha ama lowga ama ruuga, hadba saa u taqaanaan. waxaa weeye inta u dhaxaysa xudunta laga bilaabo ilaa iyo jilbaha waa cawro. haweeneydina waxaa weeye gebigeed waa cawro, waa inay is asturtaa marka yani ay tukanayso. shuruudda toddobaad waxaa weeye waqtiga waa inuu galaa. waqtiga goortuu galo waa in la tukadaa. ma banaana ama waa xaaraan waxaa weeye in waqtiga dib loo dhigo iyadoo aan cudurdaar aan jirin. balse haddii cudurdaar jiro markaas haa, laakiin bilaa cudurdaar salaada in dib loo dhigo waa xaaraan. salaada marka waqtigeeda waa in la tukadaa. shuruudda sideedaad waxaa weeye istiqbaalu lqibla, qiblada in yani la qaabilo markii la tukanayo. yani qiblada waa in loo jeestaa dhanka qiblada, dhanka kacbada waa in loo jeestaa. shuruudda sagaalaad ee u dambeysa waxaa weeye waa anniya, qofka yani inuu niyeysto salaada uu tukanayo waa inuu yani u niyeystaa. duhur, casir, maqrib, cisho, salaad subax waxay tahayba waa inuu qofka u niyeystaa. niyaduna maahan in afka lagaga dhawaaqo ee waxa weeye qalbiga waa in lagaga niyoodaa. waayo dad baa markay salaada tukanayaan duhurka kale ama casrka kale markay tukanayaan waxay ku tukadaan nawaytu usalli farda salaati duhri, nawaytu usalli farda salaati alcasri, nawaytu usalli farda salaati almaqrib, nawaytu usalli farda salaati alcishaa, nawaytu usalli farda salaati subxi. dad baa yani ku tukada oo akhriya. arrinta iyadana waa qalad, wax nebiga ka sugnaadayna maahan. qofku yani markuu rabo inuu niyoodo waa
inuu yacni waa inuusan ku dhawaaqin niyada, laakiin qalbiga waa inuu ka niyoodaa. qalbiga waa inuu kala socdaa salaada uu tukanayo ma duhurba ma casrba maqribba, inuu qalbiga kala socdaa. laakiin haddii uu ku dhawaaqo dee waxa weeyaan salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yaqaanay ma ahan. marka waa in saa loo ogaadaa in yacni lagu dhawaaqo niyadana waa bidco, ma banaana. bidcana waxaa la yidhaahdaa waxaan sal ihraad diinta aan ku lahayn ama aan nabiga laga soo gaarin, qofka yacni sameeya ba waxaa la yidhaahdaa bidco. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan fiidiyoon qofkii daawada arka subscribe ha saaro, hana ugu sheergareeyo asxaabtiisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.